يعني ظروفان كبحسنين أودينا لكن أدمتوا عن اللي هذا مان ميد كأما واحد بني آدم كسبت هذا اللي يد مودي سيني دور شو ذيك الدم سوريين مركا لما كوني سجالية طبعا خلاف كتير هدي ما أنت ده هذا يصير لنا معي وان قبائل قبائل كريو نوفمبر لما كوني سجالية ظروفتي كانت إن دي باللورد جاي دور شو إنكي كلها وكيل هذا مدة فرح بدن لي مرنا أنو قادنو tan xisbiyada dhexdooda ee muranka cusub ah marna aanu qaadno arintii soo jireenka ahayd ee kulba dib u dhigaysay doorashada xisbiyada gudahooda waa murankan commissionkan doorashadii u dambeysay dalka ka qabtay ha inoo qabtaan doorashadana iyo inoo qaban maayaan oo consent baan ka qabnaayo walaac baan ka muujinay garsoorkoodii commissionkan qaban maayaan commission cusub la magacaabo وكون هالك على الدرو horta muranka xisbiyada u dhaxeeya ka weey ki marka horeba soo jiitamay aan xal laga gaarin waa ki arrimihiisa ama qaybsiga iyo tirkoobkii dalka laga qabanay xasan baa dib u dhigay marka laga hadlayo arrimaha caqabadaha muuqday aad sheegteen dad badan baa aaminsan sharciyan markaad ku noqoto in idinku qaybta ugu badan aad leedihiin golihiina wakiilada ee imika fadhiya su'aalo waxa loo soo qaadan karayaa xeerar badan baa ansixisay waliba intii shirgudoonka aad ka mid ka ahayd xeerkii lagu soo dooran lahaa dadkii idinka idin bedeli lahaa wali dib baad u dhigaysaan ma muuqata marmarsiyaa doonaysan idinka laftiinu muddo korsiimada inaad qayb kaga ahaataan haddii ay arrintaasi xeer ahaan u xaniban tahay waxaynu odhan lahayn golaha wakiiladu lug buu ku leeyahay dowladda doorashooyinka laakiin xeerkaasi horeyna waa loo cadeeyay imkana waan cadaynaynaa xeerkaasi xeer ahaan uma xanibna siyaasad ahaan buu xanibay golaha wakiiladu go'aan kama gaari karo mana qaybin karo mana ku heshiin karo inuu saami qaybsi isagu kii lagu soo doornay isagu sameeyo arintan waa arin soo jireen ahayd 20 sano u dambeeyay laga hadlayay ilaa waqtigii cigaal jirtay waqtigii rayaalo jirtay waqtigii Axmed Silaani jirtay arintaasna waxay ahayd war saamin qaybsiga kuraastan golaha baarlamaanka ee maanta lagu fadhiyaa si cadaalad looma fadhiyo si cadaalad ah loo qaybsado arintaas saamin qaybsiga ee aad inta badan ka hadashay dadka qaar baa arkay inay tahay xakamihii ama dabarkaada idinku soo hateen 15 sanaad fadhideen lama soo hadal qaadin meel lagaga hadlayna ma jirin marka la yiraahdo cid idin bedeli lahayd baa loo baahan yahay maxaa keenay qayladan hadii ay arintu tahay waxa saamin qaybsi marka la soo qaado qolada ka hadlaysa xildhibaanada golaha wakiilada jooga ee xarunta Hargeysa Somaliland ku shaqeynaya waxaynu oran lahayn iyaga wakiiladu doonaya inay fadhiyaano dabar bay ka dhiganayaan laakiin barkadu wariya tahay rikoodho badan baad haysaa maalin walba war baad sii deysaa waxa boorama ka soo yeedhay awdal ka soo yeedhay waxa sool ka soo yeedhay la saarad ka soo yeedhay waxa sanaag bari ka soo yeedhay wax inaad la dafiri karaya ma waa tabasho shacbiyadu qabto ma xildhibaanada waxa ku filan 5 sano laga doortay way ka dhamaatay doorasho la galaya simbali laakiin waxa nuxurka markaynu tagno aynaan xaqiiqada indhaha ka lalin ma aha golaha wakiilada iyo xildhibaanada jooga ku muddo dheeraystaane exactly ilmaha yar زيلع كنول أما لوكاية كنول أما ديلا كنولي وقد يدوك على هذا الكورن يسامي قيب سكيم حال غير مركز لما تفرق وعد شعبي يعني طب يعني دواق سويرة يا دواق حلبان ما ودواق شعبي kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland Axmed Yaasiin Cali Ayaalna oo u waramayay wariyaheena magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta lagu wadaa in uu u khudbeeyo shacabka xilli wali uu taagan yahay muranka u dhaxeeyo aqalka cad iyo waliba aqalka wakiilada madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu ku dhawaaqi doono go'aano waaweyn oo khuseeya xirnaashiyaha qaybo kamid ah hay'adaha dawladda iyo amniga xuduudda Trump ayaa la filayaa inuu ka hadlo xaalad bini'aadanimo ee uu sheegay inay ka taagan tahay xadka koonfureed ee Mareykanka ismarwaa u dhaxeeya mudanayaasha dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga ee Koongareeska oo ku saabsan darbi uu Trump rabo inuu ka dhiso xadka koonfureed ayaa sababay in muddo 29 maalmood ah ay xirnaadaan qaybo kamid ah xafiisyada dawladda federaalka madaxweyne Trump ayaa dalbaday lacag ka badan 5 bilyan oo dollar halka dimuqraadiyiintu ay ogolaadeen 1 bilyan oo dollar oo kaliya haatan waa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxa inoo haya wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa maanta la ciyaaray horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa maanta laga ciyaaray kulamadiisii ugu tirada badnaa waxaana kooxuhu ay isku arkeen sida tan kooxda Wolverhampton Wanderers ayaa waxa ay 4 gool iyo 3 ku garaacday kooxda Leicester City kooxda Bournemouthna waxa ay 2-0 ku garaacday kooxda West Ham United
halka liverpool ay 4-3 ku garaacday kooxda crystal palace laakiin kulankan ayaa ahaa mid aad u adag iyadoo kooxda crystal palace ayba ku sigatay inay ka badiso kooxda liverpool. waxaa la xusuustaa in sanadkii 2014 sidan oo kale iyadoo liverpool hogaaminayso horyaalka ingiriiska ay barbaro 3-3 ah la gashay, taasi oo sabab u noqotay in liverpool looga guulaysto horyaalka ingiriiska oo ay ku guulaysatay kooxda manchester city, iyadoo la xusuusto in qaar ka mid a ciyaartooyda liverpool ay wakhtigaasi oohin kala baxeen garoonka. kulankaasi ayaa u noqday liverpool mid 10 ay ka qaadato, waxaana maanta ay si dirqi ah kaga badisay kooxda crystal palace iyadoo james milner oo ka tirsan liverpool uu qaatay calaamadda casaanka ah. kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda manchester united oo iyagu guulo isdabajoog ah ku naaloonaya intii la eriyey jose mourinho ayaa maanta waxa ay ka badiyeen kooxda Brighton Albion 2-gool ayay ku badiyeen kooxda manchester united, inkastoo iyaga xitaa ay ku sigteen in la barbareeyo. newcastle united waxa ay 3-0 uga awood sheegatay kooxda cardiff city, southamptonna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda everton, watford iyo burnleyna waxa ay galeen barbaro eber ah. haddii aynu eegno horyaalka talyaanigana kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray, kooxda roma ayaa waxa ay 3-2 ku garaacday kooxda torino. dhanka iyo horyaalka Spainna kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray, kooxda real madrid ayaa waxa ay 2-0 ku garaacday kooxda sevilla. kulamada kale ee maanta dhacaya waxaa ka mid ah Huesca iyo Atletico Madrid oo isqaabili doono, halka Celta Vigo ay martigelinayso kooxda Valencia. xubinteennii cayaarahana waa naga intaa. mahadsaned cabdulqaadir. daawadayaal waxaa intaasi noogaga dhan barnaamijkeennii qubanaha maanta. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.